maanta waxaan idin soo gudbinaynaa sheeko dhaxmartay qof dhalinyaro muslim ah iyo shaydaan oo la wareysanayo. Ma ahan qisadani shaydaan oo dhab ah in la wareystay, laakiin xaqiiqada jirta ayay ka hadlaysaa. barnaamijkani soo socda waxaanu ka diyaarinay kitaabka la yiraahdo maqaamaatul qarni ee uu qoray Dr. Caid al-Qarni. maqaamada magaceeda la yiraahdo al-maqaamatu shaydaaniyah ee ku taala bogga 255. halkaas ayaad ugu hagaagi kartaa maqaamadaasi ku qoran kitaabkaasi oo ka hadlaysa shaydaanka iyo waxa uu ku hayo dadka. run ahaantii aad ayayna muhiim u tahay inaad wax badan ka ogaato barnaamijkani. maqaamadaasi waa maqaamo barnaamijyo badan ka hadlaysa, waxaana ka soo qaadanay maqaamadaasi qaybtii ugu muhiimsaneed ee aan isleenahay bulshadeena waa ay qusaysaa. aad ayaadna u mahadsantihiin. ku soo dhawaada barnaamijka. sidan ayuu ku bilowday. bismillah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. addoonkii allow amiin dheer ayaad haysataa. iska hurud, iska saaxo, waqtigu ma dhowa. waxaan ka cabsanayaa inay salaadu iga tagto. waqtigu wuu u dheer yahay. salaada jamaacada inay iga tagto ayaan ka cabsanayaa. alla ka cabsigaas ku adkaynin. markii aan hurdada ka soo kacaba waxaan arkay qorraxdii oo soo baxday. shaydaankii wuxuu igu yidhi, ha ka xumaanin wixii waqti kaa tegay. maanta oo dhan waqtiyaad iska haysataa. waan fariistay si aan adkaarta u akhristo. shaydaankii ayaaba buuggii fakarada igu furay. waxaan ku idhi, ducadii ayaad iga mashquulisay. galabta ducayso. oo ilaa galabta yaa i ilaalinayo. dhallinyaronimadaada ku raaxayso. geeri ayaan ka cabsanayaa. cimrigaadu ma tegaayo, wuu dheer yahay. suurad qur-aanka ka mida inaan xifdiyo ayaan rabay. wuxuu igu yidhi, naftaada heesaha ugu raaxeey. waa xaaraan. culimmada qaar ayaa dood ka qaba. axaadiista xaaraantinimadeeda sheegaysa warqad ayay iigu qoran tahay. dhammaantoodna waa daciif. addoonka allow gabar qurux badan. kadib aragga ayaan laabay, hoos ayaan fiiriyey. maxaad indhahaada u laabtay? waa khatar. ku feker quruxda. fekerku waa xalaal. dhanka kacbada ayaan aaday si aan u soo cumraysto. waddada ayuuba ii istaagay. wuxuu yidhi, xaggeed u socotaa? si aan u soo cumraysto. maantoo dhan ma waxaad khatar u soo galayda cimradan darteed? albaabada qayrka way badan yihiin, xasanaadkuna waa waasacsan yihiin. waa inaan acmaal badan samaystaa, axwaasheedana hagaajiyaa. jannada laguma galo acmaal oo keliya. qof dhalo waddada ku tuuray ayaan u sheegay inay dadka dhibayso dhalada. shaydaankii wuxuuba igu yidhi, naftaada fadeexad ha u soo jiidin. ee taas dadka ayay anfacaysaa. waxaan kaaga baqayaa iscaanbixin. maxaa yeelay iscaanbixintu waa madaxii fasahaadka. ka waran sideed u aragtaa haddaan dadka qaar wax kaa weydiiyo? dhammaantood waan kaaga jawaabayaa. iiga waran axmed ibnu xambal. wuxuu igu dilay hadalkiisa. kitaabka qur-aanka qabsada iyo sunnada nebiga. ibnu taymiyana maalin kasta ayuu madaxa iga garaacaa. bal iiga waran bukhaarina. kitaabkiisuu gurigayga ku gubay. fircawn sidee u aragtaa? hiil iyo hoo ayaan la garab joognaa. salaaxudiinna ka waran. kaasi dhooqaduu nagu dhex jiiday. maxamed ibnu cabdilwahaab maxaad ka leedahay? laabtayda ayuu dacwadiisa ku shiday. holac iyo dambaaburo ayuuna igu gubay. abujahal ka waran. ehel iyo walaalo ayaan u nahay. abulahabna maxaad ka tiri asagana? meel kasta uu joogana waa la jirnaa. jaraa'idiyada foosha xun sideed u aragtaa? waaba sharcigeenna. baararka waaweyn iyo maqaayadaha ka waran ayaga? waxaan ku soo dhoweynaa qof kasta oo malayacniga jecel. waa maxay digrigiinna iyo xuskiinna? waa heesaha. shaqada aad qabataanse waa maxay? waa ididiilada beenta ah. suuqyada sideed u aragtaa? waan ku kulannaa suuqa.
dadkan xuska alla aqoonna waan dhuminaa. dadka sideed u dhumisaa waxyaabaha naftu jeceshahay iyo shubahaadka maalaan yacni iyo waqti dhammays. haweenka gaar ahaan sideed u dhumisaa isqurxin iyo dhar qaawan oo la qaato, amarkii alla oo laga tago, iyo xumaanta oo lagu kaco. ka waran culimada qaabkeed u dhumidaa jeclaanshaha caanimada, isla tacajab iyo isla weyne, iyo xaasilnimo laabta buuxisa. bal caamada iyagana iiga waran sideed u dhumisaa xan iyo isku diritaan iyo hadallada jiran een qiimaha lahayn. ganacsatada ka waran ayaga qaabkeed u dhumisaa ribada iyo diididda sidaqooyinka iyo biil bixinta oo lagu xadgudbo. qaabkeed u baadiyeysaa ood u dhumisaa dhallinyaradana shukaansi iyo jacayl, beer dilaacshe iyo qaaraami, iyo fududaysiga axkaamta iyo samaynta xaaraanta. ka waran sideed u aragtaa Israa'iil ama Yahuudda war iska dhaaf xanta, xantu waa musiibo. Israa'iil waa dawlad aan jecelnahay, qalbigeenna ayayna ku weyn tahay. culimada ducaadda ah ee diinta dadka ugu yeera sideed u aragtaa iyagana way i cadaabeen, way i daaliyeen, wixii aan dhisay duminayaan. markii aan heesana qur-aanka ayay akhrinayaan, markii aan imaadana ilaahay ayay iga magangelayaan. qaaruun maxaad ku samaysay waxaan ku idhi kaydka ilaali si aad u guulaysato oo caan ah u noqoto. fircawnse maxaad ku dhahday waxaan ku idhi boqorkii qasrigow dheh anigu melihi miyaa masar, markaas waad guulaysanaysaa. maxaad ku tiri qofka qamrada cabaya waxaan ku idhi cab qamrada, murugada ayay kaa qaadaysaa, walwalka ayay kaa suulinaysaa, waadna toobad keeni doontaaye. ii sheeg maxaa ku dilaya adiga aayatul kursi naftayda cariiri bay gelinaysaa, xabsiga ayay igu dheeraynaysaa, balaayo kastana ayada ayaa igu ridaysaa. dadka nuuceebaad ugu jeceshahay ii sheeg fannaanada, abwaanada beenaalayaasha ah, dadka macaasida u saaxiibka ah, iyo mid kasta oo xun oo fidnaalo ah. yaad ugu necban tahay dadka masaajidda ku tukada, mid kasta oo rukuucsan iyo mid kasta oo sujuudsan, mid kasta oo alla caabuda iyo mid kasta oo waddada alle ku halgama. haddaba ilaahay ayaan kaa magan galay acuudu billaahi mink maya